waxaa dhacday 2017 bishii December 17-keedii maalin cad ayaa waxaa la habeen madow waxaa la weeraray qof siyaasi ah oo ra'yigoodii ra'yi ka duwan xukuumadii ayaa gurigiisa lagu weeraray ciidana lagu weeraray waa markii ugu horeysay oo tan iyo dagaaladii ay dhaceen in qof Soomaali ra'yigiisa ka duwan oo wata magac dawladeed iyo ciidan dawladeed iyo howlo dawladeed lagu weeraray ma dhici jirin in magac dawladda qof siyaasi ah lagu weeraro oo hubka dawladda lagu weeraro oo ciidanka dawladda lagu weeraro because of waaga ra'yi duwan because of ra'yiga ra'yi ka duwan oo wata marna ma ayna dhicin ma aragtay waa la weeraray dad baa lagu dilay not only in la dilay dadkii waxa lagu duugay dharkoodii iyo ahaladoodii iyadoo lala tashanaa wax doon laga soo bixiyay arinta ayada ah inta la yimid lagama garwaaqsan lama dhihin khaladan ku suubina waa gafnay iyo wax la mid ah qafka noocaas qof suubiyay oo tabacad uga timid oo lagu xisaabtamana ma jirto haddana dawladdu waxay diyo ku bixisay dadka ay duugtay xawlii dawladda ka bixisay xawlii dawladda ku dishay xawlii dawladda ku weerartay yaa la xisaabtamay xukuumaddaas waxaa moodaa hanaankii ay ku timid hoggaanka maanta jiro oo doorashada ahayd oo raaliga ahayd oo shacbiga ku soo doortay inay inta ka leexatay ay isticmaalaysa hanaan kale oo dhib badan markaan ka hadlaa arrimihii gudaha kaliya ka hadloohaya iyo waxyaabihii dhacay 2 sano la soo dhaafay waxaa la weeraray oo gurigiisa la galay senator ka mid ah senatarada aqalka sare ee wadanka maalinkaas waxaa la yiri guddi baaran u suubinayna sanada ka soo wareegtay maanta waa special waa December 2018 sanad ayaa ka soo wareegay ilaa ay hadda baaritaankii qof lagu ciqaabo ma hayno qof lagu soo eedeeyo ma hayno waxa bay yaraatay natiijo oo uu soo saaray oo aan dhihi karno maanta natiijo aan ku qanci karno ayuu keeno ma jirto kaliya waxaan u aragnaa inay tahay in argagax gelin iyo macna runtii aniga aan wadanka jirin 12 sano la soo dhaafay oo dawladnimada la haystay oo ah xooga lagu kala adkaanaya dawlad xoog kuma adkaatay sharci ku adkaata dawlad xoog kuma adkaato muquulin kuma adkaato handadaad kuma adkaato laaluush kuma adkaato waxay ku adkaan kartaa kaliya sharciga iyo doorashada iyo hanaanka maanta uu yaalo wadanka inay raacday ku adkaan kartaa xukuumad kastoo jirto